wadamada Scandinavian-ka ee Norway, Sweden iyo Denmark ayaa Ukraine ugu yaboohayo adduun lacageed oo gaarayo 5 bilyan oo karoonka Norwejiga ah si ay hub cusub oo casri ah uga soo iibsadaan dalkaasi Mareykanka. Norway ayaa bixin doonta adduun lacageed oo gaarayo 1.5 bilyan oo karoonkeeda ah si ay Ukraine ugu soo iibsato hub casri ah oo difaac iyo weerarba leh maadaama dagaal aad u culus uu kala dhaxeeyo wadanka Ruushka. wadamada Scandinavian-ka ee Denmark, Sweden iyo Norway ayaa isku dar ahaan bixin doona adduun lacageed oo gaaraya 5 bilyan oo karoonka Norwejiga ah ka oo lagu soo iibin doono qalabka difaaca cirka iyo sidoo kale kuwa hawada ka ilaaliyo gantaalaha iyo diyaaradaha aan duuliyaha wadin si ay Ukraine ugu suuro gasho in ay iska difaacdo duulaanka uu Ruushka ku hayo dalkeeda. Ra'iisul Wasaaraha wadanka Norway, Jonas Støre ayaa sheegay in hindisahani uu yahay mid ka yimid wadamada gaashaanbuurta NATO iyo Mareykanka ka oo gacan ka geysan doona sidii ay Ukraine ugu suurtageli lahayd in ay hesho qalab casri ah oo military oo muhiim u ah difaaceeda. Qorshahan cusub oo loogu magac daray Burol ayaa dhigaya in wadamada Yurub ay bixiyaan lacago badan si taa lamidana uu Mareykanka bixiyo hubka iyo rasaasta si ay Ukraine ugu suuro gasho in ay helaan hub casri ah oo ay kula dagaalamaan wadanka Ruushka. Wasiirka difaaca dalka Norway, Tore Sandvik ayaa sheegay in ay hubin doonaan tabarucaaddan lacagta ah hubka lagu soo iibin doono si taa lamidana waxa uu sheegay in loo baahan yahay in hubkan casriga ah ee difaaca uu u gaaro dalka Ukraine si degdeg ah. Dowladda Netherlands ama Holland oo tabarucaaddan iyaduna ku horeysay ayaa waxa ay sanduuqani ku bixisay adduun lacageed oo gaarayo 500 milyan oo euro taa oo loogu talagalay in Ukrainiyiinta iyaguna ay ku soo iibsadaan hub casri ah kuwa oo ay sheegeen in ay kula dagaalamayaan isagana difaacayaan Ruushka oo dagaalkooda uu socdo muddo sanooyin ah. Halka wararka ugu doorkaroon idinkaga imaanayaan waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo Cabdullaahi Shiine.